السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي عبد الرحمن. فضلا جانلك هدي اكو عصب تاي سبسكرايب صار سي كوسو قاران مقالة هيغا جانلك waxaa hadla arrimaha ganacsiga maamulka sidoo kale arrimaha procurement iyo kale supply chainka logisticada marka waxaa kaa codsanaya inaad subscribe inoo saarto insha allah. Maanta waxaa ka hadlaynaa sida loo dhiso personal brand waxaa lahaa magacaaga shaqsiga sidee yani bulshada saameyn aad ugu lahaan kartaa oo magacaad aad ugu gadi kartaa, okay, aad u dhisi kartaa. Dhowr go'aamaa jira ama dhowr qodob oo kaa caawinaya inaad yeelato personal brand. Go'aami qiimahaaga iyo himilooyinkaaga. Si aad u dhisto personal brand, waa inaad marka hore fahantaa waxa aad ka taagan tahay bulshada iyo waxa aad rabto inaad dadka u sheegto. Tani waxay ka dhigan tahay inaad qeexdo qiimaha aad leedahay iyo himilooyinkaaga. Tusaale ahaan, haddii aad tahay qof ku takhasusay suuqgeynta digitalka ah, waxaad dhisi kartaa magacaaga shaqsiga ah iyadoo laga duulayo aqoontaada iyo xirfadaada. Yacni dadka ayaa waxaad ka gadaysaa aqoonta aad u leedahay suuqgeynta. Yani dhowr program oo ku saabsan yani sharaxaya inaad tahay qof noocaas ku takhasusay xirfadaas leh ayaad bulshada ka gadaysaa. So qof waliba digital marketing wax ugu baahdo kale. Digital marketing markii la soo hadal qaado si loo dhaho war ninkii hebel ahaa ama gabadhii heblaay ahayd, okay. So marka adiga sababay in sidaas lagu soo raadiyo personal brandigaas adiga sameeyay. Marka waxay ka saacidaysaa waxyaabo badan, okay. Sidoo kale sida u gaartid personal brand waxaad u baahan tahay inaad ujeedooyinkaada ka dhigtid mid cad. Inaad leedahay ujeedooyin cad ayaa muhiim ah si dadka ay u fahmaan waxa aad raadinayso. Waxaa laga yaabaa inaad doonayso inaad samaysato sumcad gaar ah oo ku saabsan horumarinta shaqadaada ama inaad noqoto hogaamiye ku saabsan dhinac gaar ah oo xirfad leh. Ujeedooyinkaaga waxay ku iftiiminayaan dariiqad aad raaci karto. Waxyaabaha aad ku gaari karto personal brand waxaa ka mid ah samee nuxur qiimo leh. Abuurista nuxur qiimo leh sida blog ama postis aad soo qorto baraha bulshada. Sidoo kale aad samayso muuqaalo ama podcast sidoo kale aad duubto. Waxay kaa caawin kartaa inaad xoojiso magacaaga shaqsiga ah. Tusaale ahaan, haddii aad ka hadlayso fikradaha ganacsiga, waxaad abuuri kartaa qoraallo ama fiidiyow ku saabsan talooyin iyo hagitaan ku saabsan sida ganacsiga loo bilaabo. Tani waxay dhisaysaa kalsooni iyo aqoonsiga dadka. Inay dadka ku aqoonsadaan inaad arrimaha ganacsiga aad iyo aad ugu fiican tahay. Waxyaabaha aad personal brand ku gaari karto waxaa ka mid ah waxaad dadka la wadaagi kartaa khibradaada iyo waxyaabaha aad caqabad ahaan aad kala kulantay. Dadka waxay jecel yihiin inay arkaan waxyaabaha dhabta ah iyo wixii aad soo martay. Haddii aad la wadaagto caqabadaha aad ka gudubtay iyo sida kuwa aad ka guuleysatay oo kale, waxaad noqon doontaa mid soo jiidasho leh. Isla markaana dadka waxay ku arki doonaan inaad tahay qof dhab ah oo la fahmi karo. Waa dadku waxay jecel yihiin dadka guuleystay oo kale markay ka sheekeynayaan dhibaatadii ay soo mareen, caqabadihii ay soo mareen, marxaladaha nolosha ay soo mareen. Qof walba wuxuu u xaqal taagayaa markaas inuu maqlo. So marka qof walba wuxuu ku arki karaa inaad qof lagu dayi karaa tahay. Personal brand inaad noqoto waxaa kaa caawin karaa isku xidhka bulshada iyo xiriirada. Magaca shakhsiyadaada waxaa lagu dhisi karaa xiriirka aad la leedahay dadka kale. La samee xiriir joogto ah oo la yeesho bulshadaada adigoo isticmaalaya baraha bulshada. Dhacdooyinka ama fadhiyada online oo kale isku xirnaanta dadka iyo macaamiishaada waxay dhisi kartaa sumcad iyo kalsooni. Sida Facebook oo kale inaad sumcad ku yeelato, inaad TikTok oo kale sumcad ku yeelato, inaad YouTube oo kale sumcad ku yeelato. YouTube oo kale hadda waxaa sumcad ku leh 100% dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed sida Team Malaysia oo kale oo ugu horeeya walaalkeena Asad Xaaji oo kale uu dhisay waa personal brand oo maanta YouTube badan oo Soomaali ah uu soo saaray. Sidoo kalena maanta asaga loogu dambeeyo arrimahaas. Maanta haddii la soo hadal qaado YouTube dadka 10 qof oo ugu horeeya ama 5 qof oo ugu horeysa ku soo dhacayso waxa ku jiro dadka uu ku soo dhacay waxa ku jiro Asad Xaaji. Marka waad dareemi kartaa personal brand xoogan inaad dhistid. Sidoo kale waxaa kaa caawin kara joogteynta iyo sabarka. Dhisidda magaca shakhsiga ah waa hawl qaadanaysa waqti.
sabir iyo joogtiin ayaa lagama maarmaan u ah. Markaad si joogto ah u shaqeyso oo aad u ilaaliso sumcadaada, waxaad arki doontaa natiijooyinkaaga waqti kadib. Okay, Asad Xajiyo waagii YouTube uu bilaabay qof yaqaani ma leh, laakiin markii uu joogteeyey oo wixii de waqti geliyey, maanta waxa waaye Soomaali, magaca Soomaali dad walba uu ku hadlo, meel walba ay joogaan, dhalinta iska ha u badnaadeen, waa la wada yaqaanaa. Okay, so marka intaas muxuu ku gaaray? Wuxuu ku gaaray joogteen iyo sabir. Dhismayaasha wanaagsan ee magaca shakhsiga ah ayaa ku saleysan kartidaada inaad bulshada u soo bandhigto naftaada si dhab ah, yacni oo la fahmi karaa oo de si la yaqaan, adigoona de bulshada aad ugu qarinaynin inaad de qof xun tahay. Sida Ilaahay kugu ogyahay oo Ilaahay kugu abuuray oo nafsadaada daacad ay u tahay, bulshada ugu soo bandhig si lagu fahmo qofka saxda ah aad tahay. Arooti haddii weji aad dee bulshada dhanka wanaagga aad u soo bandhigtid, kaamirada markii laga tago kale, weji kale oo lagugu arko, xoogaa waxay keenaysaa dhib iyo kalsooni daro iyo sumcad daro. Oo de arooti bulshada dhexdeeda xitaa ceeb baa kala kulmi kartaa. Laba wajiiloo kale in lagu dhaho. Marka mar walba waxaa ku dadaashaa inaad noqoto qof hal weji leh oo sida lagugu bartay aadan waxba iskaga bedelin. Sidoo kale adigoo ilaalinaya xirfadahaaga iyo qaab dhaqankaaga. Magaca shakhsiga waa awood muhiim ah oo kaa caawin kara inaad heshid fursado badan oo cusub. Markaad personal brand xoogan dhistid, waxay kaa caawinaysaa inaad dee bulshada sumcad aad ku yeelato. Waxay kaa caawinaysaa inaad ganacsi aad furatid. Sida hadda gabadha Coco Bull ay samaysay oo kale, waxay samaysay YouTube ay ku soo canbaxday sax, magac qurux badan ay samaysatay. Muqdisho hadda u soo wareegatay, business weyn ay furatay oo loo yaqaan Coco Collection. Dharka ciyaalka oo kale, dharka ay keentaa. Okay, so marka bulshadiina saameyn ku yeelatay, maanta radde business ay furatay. So markaas maxay kaa saaciday horumar badan ka gaartay. Marka mar walba waxaad ku dashaa inaad si wanaagsan dhanka positive-ka ah aad nafsadaada aad ugu sameyso horumar shakhsiyadeed, magac qurux badan aad ugu sameyso. Laakiin dhanka negative-ka kale, dad badan oo de negative sida aalada TikTok oo kale, aalada TikTok oo kale boqolkiiba 80 waxyaabaha la soo boosti gareeyo negative-ka ugu badan. Dadka ugu caansan oo kale ama dad maanayaan isaga jiro oo kale, waa fahamsan isaga badan yihiin. Marka waad dareemi kartaa yacni inaad mar walba ku dadaasho dhanka positive wanaagga lagugu soo xasuusto inta negative lagugu soo xasuusana. War hebel saan waaye, hebelay saan waaye. So qofkii asigoo aaladda ku dhex jiro haddana uusan ka faa'iideysanin, waana xanuun. Marka waxaan rajeynayaa muuqaalkan wax badan inaad ka faa'iiday. Insha Allah channelka haddii aad ku cusub tahay, subscribe inoo saar. Thank you so much.